Nasruddin Faraj Ahmed oo dalka Norway looga yaqaano Mulla Kareeka ayaa maxkamad ku taala magaalada Oslo ay ku xukuntay 5 sano xarig ah. ninkan ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Ciraaq ahna Kurdistan kadib markii baa la yiri lagu helay dambiyo kala duwan oo ah argagixiso iyo hanjabaad uu kula kacay shakhsiyaad kala duwan ayaa maxkamadda go'aankeedii ugu dambeeyay uu noqdo in ninkan xabsiga loo taxaabo muddo 5 sanadood ah. arrimaha looga hadlay maxkamadda ayaa waxa ugu xiiso badnaa kadib markii uu hanjabaad khaas ah u geystay haweeney ka tirsanay dowladana ahayd wasiirad hore oo xukumaysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Norway oo lagu magacaabo Anna Solberg. xilligaasi ayaa ahayd mid Anna Solberg ay xukun ku soo rogtay in fikrad ahaan loo diri karo dalka Ciraaq ninkan dibna loogu celin karo taasoo Mulla Kareeka uga jawaabay haddii ay noqoto in la celiyo inuu qaadi doono tallaabo markaasi la xiriirta in haddii lagu dilo dalka Ciraaq ay noqon karto in Anna Solberg lagu weeraro iyadoo joogta magaalada Oslo. أرنا سولبرغ تقول أخرج ملا كريكا للموت وتدفع ثمنها من روح. من الذي يقبض الروح؟ هؤلاء القاعدة أنصار الإسلام أقربائي أولادي لا أعرف من. warbixinadaasi jaraa'idada qoraan ayaa waxa ugu dambeeyay mid jaraa'idka dalkan ugu caansan oo qoray ka hadlaysay in ninkan uu fikradiisu ay ku aadan tahay in mustaqbalka dhow ay noqonayso inuu u guuro dalka Soomaaliya. haddaba uu yimi ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiweli Gaas dalka Norway ayaa shir jaraa'id lagu qabtay bartamaha magaalada Oslo lagu weydiiyay in arrimahaasi uu wax kala socdo uuna maqlay waxaana uu yiri We have enough troublemakers in Somalia and we can. Mulla Kareeka ayaa xukunkan ku dhacay maanta kadib uu ogolaaday kaliya telefishinada Al Jazeera iyo Royal TV inuu siiyo warbixin. بارا الجزيرة والسلام عليكم. Hur länge har du vara advokaten hans? Oj, det har varit sedan 2002. Hur länge får du? Han verkar vara väldigt intresserad i media och hela Norges problem. Men hur länge kan du fortsätta vara hans advokat? Så länge det är saker. Kareeka ayaa xukunkan dhacay kadib uu ogolaaday oo kaliya telefishinka Al Jazeera iyo Royal TV inuu siiyo warbixintaasi ayaan haddaba kula kulmay su'aalaha ka weydiiyay sida bal maanta xukunka marka uu dhacay uu dareemayo shakhsiyan waxaana uu yiri أنا لست راضيا بالتأكيد عن قرار aniga go'aankii maanta maxkamadda ee gaartay go'aan aan ku qanacsanahay maaha waa go'aan siyaasadeed mar walba wuxuu salka ku hayaa dhanka siyaasadda ayuu gacanta ku hayaa marka aan sanadihii ugu dambeeyay aan ka hadla Norwayna macnaha waxay noqdeen sida saaxirintii fircoon oo kale dhammaantood waxa ay iska qoraan waxa ay doonaan sidoo kale ayaan Kareeka wax ka weydiiyay arrimaha la afayo ee laga hadlayay arrimihii ugu dambeeyay ahaa tigitaankiisa dalka Soomaaliya waxa uu ku doortay cidda uu xiriir kala leeyahay isagoo arrintaasi faahfaahinana waxa uu yiri Mulla Kareeka هذا أنا أفرح بالسفر. waan ku faraxsanahay inaan u safro Soomaaliya waa dadkaygii waa dad aan jecelahay waa dad i jecel waa aad ayaan dad oon maaragtay aan uga jecelahay ummadaha dadka kale oo dhan aan ka jecelahay ayaguna ay jecel yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Norwegianka ahaa oo wadaad Christian ahba xafiis ayuu ka soo furtay meesha aniga maxaa ii diiday in aan u tago dalkayga Soomaaliyeed oo sidoo kale ayaan ugu dambeyntii weydiiyay xaaladda nololeed ee dalka Norway isaga iyo familkiisa sida uu dareemayo kadib markii uu xukunkan dhacay. أنا بالنسبة لي كنت أعتقد وما زال يعني أن الضغط علي سيزداد لأنه زادت نشاطاتي من جديد في بلادنا والمربع أو المثلث الشيطاني الذي كانوا في البداية يضغطون علي جماعة طالبان والمخابرات النرويجية والمخابرات الأمريكية هم الآن ما زالوا في نفس النشاط ورجعونا إلى المربع الأول ليسعوا من جديد لإيقاف نشاطاتي وهذا هو السبب. شكرا. يا مرحبا. intaasi kadib ayaa la soo gabagabeeyay maxkamaddii isagoo maxkamadaasi sida qareenkiisu uu igu warramay ay noqotay mid uu ka qaatay waxa loo yaqaano abiilka oo dib la isugu soo noqon doono iyadoo sida muuqata la tiigsan doono maxkamadda ugu sarreysa ee dalkan ee loo yaqaano Høyesterett afka Norwegianka lagu yiraahdo. Xasan Saciid telefishinka caalamiga Royal 24 magaalada Oslo ee dalka Norway.